kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dib u cusboonaysiin waxaa loogu sameeyay cunaqabatayntii hubka ay saarnay dalka Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale soo saaray qaraar culus oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. 13 dal ayaa taageertay codeynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qaaday cunaqabataynta saaran Soomaaliya, waxaana ka aamusay Ruushka iyo Shiinaha. golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay wax ka qabato ilaha dhaqaale ee kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inay sanadkii la soo dhaafay lacag gaaraysa $21 milyan ay ka heleen gudaha Soomaaliya. waxaa sidoo kale la mamnuucay in dalka Soomaaliya la keeno qalabka ay kooxda Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. dalka Shiinaha oo codeynta ka aamusay ayaa sheegay in dhankooda ay soo gudbiyeen talooyin la xiriira qaabka ugu wanaagsan ee loo qaadi karo cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saaran, balse soo jeedintaasi aan la qaadan. in mar kale dib loo cusboonaysiiyo cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ayaa lagu dhaliilaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ku guuleysan weysay inay xakameyso hubka kooban ee gacantooda soo gala. dowladda federaalka oo si kumeel gaar ah loogu ogolaaday hubka fudud ee lagu qalabeynayo militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in qaar ka mid ah hubkaasi uu ka baxay gacanteeda. dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyagu ka mid ah wadamada inta badan soo jeediyay in la qaado cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya si ay u helaan qandaraasyada iibka hubka.